بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد walaalayaal waan idin salaamayaa mar kale barnaamijkeeni ayaan idin ku soo dhaweynayaa qisooyinka Quraanka waa barnaamijkii 8aad waana barnaamijyada ugu dambeeyay insha Allah maanta qiso insha Allah kama hadlayno intii Ilaahay subhanahu wa ta'ala haynagu anfacayn hore sunnadi insha Allah waxaan doonayaa maanta in aan maaragtay raado qisooyinka Quraanku waxweeyaan waa qayb kamida sidoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu doonay inuu dadka ku tarbiyadeeyo qisooyin fara badan oo waxaynu soo qaadanay ilaa iyo 27 qiso ayaynu soo marnay marka laga reebo kii hore dhacaha insha Allah 26 qiso ayaynu soo marnay oo qaybo kala duwan oo Quraanka aynu ku soo marnay waxyaabahan uu qaadanay qisooyinkaasina waxweeyaan dhowr arrimood number 1 sidoo Ilaahay sheegay in inoo noqoto ibro inoo noqoto number 2 in maskaxda kaga fikirsiino oo ibraha inoo noqoto quramaha in maskaxdeena kaga shaqeysano inuu ka faa'iideysano qisooyinka waxyaabo inaka in anfacaya ta ugu dambeysana waxa weeyaan inay ina suqto oo Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam qisooyinka dhan looga sheekeynay inuu ku sugnaado diintiisa uu ogaado in xaq tahay ujeedooyinkaas iyo ujeedooyin fara badan oo insha Allah aan hore uga soo hadlay barnaamijyada kala faraha barnaamijyadii badnaa insha Allah bisha Ramadaanta ka hadlaynay ayaan insha Allah aanu kaga soo hadalay kii ugu horeysayna ku noqdo insha Allah hadaad rabtaan ujeedooyinka qisooyinka Quraanka ku yimaadeen laakiin waxaan doonayaa insha Allah in qadiyadahaas faraha badan aynu bisha Ramadaanta aynu barnaamijyada faraha badan kaga hadalay inaan noqon sheekooyin la dhageysto laakiin ay noqdaan wax hore inoo mariya inay noqdaan wax nolosheena wax ka bedela inaan Quraanka mar labaad xiriir la yeelano inaan Quraanku noqonin waxyaabaha ku qoran inaan wax taariikh laga hadlayay laakiin ay tahay wax innaka waqtigeena soconaya wax waqtiga soo socdo noqonaya saadaraadad u fiirso rag badan oo kamid ah Quraanka laga hadlay magacidoodu waa la qariyay waxa kamid ah kiyaan maanta idin sheegay maanta ugu dambeysay aan kaga hadlay barnaamijka ahaa ninkii reer Fircoon ahli Fircoon waxa kamida kuwii maaragtay qariyadii aynu Yaasiin kaga soo hadalay waxa kamida dhamaan dad badan oo la qariyay waxa loo qariyay wax kala maaha inay diintu qisooyinku ka sheekeynayaan dhacdo taariikhi oo soo martay waxa ka sheekeynayaan barnaamijyo iyo qorshayaal ay dadkaasi ay qaateen oo ku badbaadiyeen ummadooda ku badbaadiyeen innakana saasoo kale taalayna garaba insha Allah inuu ka faa'iideysano aad waxa uu mahadsan dhamaanba walaalaha kala duwan ee nagala qayb galay barnaamijyada aan soo deynayna insha Allah dadka walaalaha ay gaaraan walaalo fara badan baa jira oo barnaamijyadan sii fidiyay Allah subhanahu wa ta'ala haydinka abaal mariyo aad baana dhamaantiin meel kasta joogtaan dadka faraha badan ee nagala qayb qaatayna insha Allah cid kale u sii gudbiya aad baan idinku mahadnaqaya gabagabadina insha Allah waxaan aad mahad khaas ah soo jeedinaya walaalkeen akhuna shirwac oo barnaamijkan soo saaray duubay internetka geliyay insha Allah idin soo gaarsiiyay waqti badan ka qaadatay waxaan Allah subhanahu wa ta'ala isagana uga baraya inuu ajar fara badan maalinta qiyaamaha ka siiyo islaam Djibouti inta kala shaqeysana saasoo kale waxaan rajeynayaa khayr fara badan aad baan idin salaamaya insha Allah waqti kale iyo goor kale iyo mar kale hadda Allah subhanahu wa ta'ala isku keen soo celiyo waan isku soo noqon doonaa maanta insha Allah barnaamijyadii bisha Ramadaanta nagu tala galay qisooyinkii oo bishan insha Allah nagu tala galay in la wadaagno waqtiga Ramadaanta intaas insha Allah ku koobina aad baan idin salaamaya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.